haddana waxaan u yeerayaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo jeedin doona kelmad uu ku soo dhaweynayo ka qaybgalayaasha shirka. Sheekh Bashiir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، مدحوينها جمهورية الصومالية بروفيسور حسن شيخ محمود، وزراء أعضاء البرلمان وضياشة علماء دلنيرada warbaahinta saxaafadda dhammaan xaadiriinta qof kasta magaciisa uu leeyahay maamuuskiisa uu leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ila soo nahay safarada ayaguna soo dhaweynaynaa jazakumullahu khayran. alxamdulilah, ilaah subxaana wa tacaala baan ku mahadnaqaynaa ma hadan la koobi karin. waxaan ku mahadnaqaynaa haddii aan nahay shacabka Soomaaliya, culimadii aan nahay, runtii dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo wasaaradda oo fikraddan soo dhaweeyay markii culimadu ku baaqeen in shir laga qabto arrinkaani. arrin laga shiro waa istaahilaa, culayskiisu leeyahay, meeshuu naga beegtay meel khatara weeye, waa diintii iyo weeyaan. marka in shir loo qabto qarameed oo maaragtay la isku xilqaamo fikraddaas culimada lahayd, dowladduna runtii soo dhaweynta iyo fududeynta ayay lahaayeen. waa ku mahadnaqaynaa jazakumullahu khayran ayaan odhanaynaa. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddiyadii shirkan loo saaray inay qabanqaabiyaan oo maalintii fikradda la soo dhaweeyey ilaa hadda la joogo ka shirahayey, shirar joogtaa ka qabanayay sidii shirka u furi lahaa, uu maaragtay u taabageli lahaa. dhammaantoodna waa ku mahadnaqaynaa. waxaan u mahadnaqaynaa ragga soo xaadiray oo invitationka iyo dacwada loogu yeeray ajiibay, ama gudaha ka yimaadeen ama dibadda ka soo safreen. rag baa soo safray oo runtii meel fog ka yimid. gudaha laftiisu imaatinkiisu ma sahlana oo duruufaha waa la soconnaa. marka dhammaan raggii gudaha ka soo xaadiray iyo raggii dibadda ka yimid aad bay u mahadsan, jazakumullahu khayran. waxaan kaloo mahadnaqaynaa runtii ragga maaragtay inay ka soo jeediyaan meeshaan kelimooyin iyo muxaadarooyin ama awraaq lagu talagalay oo soo diyaariyey, ayagana waan ku mahadnaqaynaa. walaalayaal, shirkaasaa maqlayseen waa shir maaragtay asagoo carabi iyo soomaali ingiriis ah ayuu ku qoran yahay tabeelaha sida ku cad meesha. waa mu'tamar Soomaaliyeed, cid kale ma laha, Soomaali baa iska leh, maaragtay gaalaha iska leh iyo UN baa iska leh, ma ahane mu'tamar Soomaaliyeed weeye. waana mu'tamar loo dhan yahay oo insha allahu tacaala aan laga kala maqnayn weeyaan. waa mu'tamar lagu daaweynayo, kelmadda daaweynta in maaragtay la fahmo waan jeclahay. waa lagu daaweynayaa mushkiladda jirta oo ah in diinta si khaldan loo fahmo, diintana lagu talax tago. marka shir Soomaaliyeed isku timid weeyaan oo wax lagu daaweynayo insha Allah tacaala. dadka ay khusaysay hadday culamo tahay, hadday aqoon-yahan kale tahay, ayaguna insha Allah tacaala xaadiriin weeye. marka in wixii awood lahayo, maskax lahayo oo maan lahayo lagu soo insha Allah bandhigo ayaan rajeynayna insha Allah tacaala. inkastoo dee shirka laga yaabo inuu maaragtay xagga xoogga culimada saari uu doono, laakiin haddana dhan kasta sidii uu sheegayay hadda doctor Daahir waa maqlayseen, dhan kasta waa laga eegi doonaa insha Allah tacaala. marka mahadnaqaas ayaan insha Allah anigu meesha usoo istaagay. waan soo dhaweynaynaa shirkan in insha Allah waqti fiican aan isku helno, qof kastana insha Allah tacaala si wanaagsan oo qalbi furan insha Allah tacaala uu uga qayb qaato. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.